xilli saaka uu soo baxay warkan sheegaya in boob lagula dhaqaaqay xarunta safaaradda dawladda Iiraan ay ku leedahay Soomaaliya iyo dhismaha xarunta caafimaadka ee bisha cas ee Iiraan ayaa waxa arinkaasi beeniyay madaxa caafimaadka ee bisha cas ee Iiraan ee Soomaaliya Dr. Mujtama Qasimi waxa uu cadeeyay in aan warkaas waxba ka jirin marhon cable ay wax ka weydiisay arintaas waxa uu sheegay inay jirtay dawooyin saaka laga bixiyay xaruntan aan hadda ku sugannahay taasoo loogu talagalay in loo qaybiyo xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho maadaama uu ka sii dhamaanayo dawladda Iiraan waqtiga ay ku joogi lahayd Soomaaliya isagoo mar arimahaas ka hadlayna waxa uu yiri I'm Dr. Qasimi, head of the Iran Red Crescent Clinic in Mogadishu. It's a bad news about the Iran clinic in Mogadishu, but I want to tell you the right news. Alhamdulillah, whole of things is okay, and this compound is safe, and I'm safe, and this compound is under observe the Somali Red Crescent or Somali Bishas, and the high level under observe the Somali government. Thanks a lot. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan waxay xiriirkii u jartay dawladda Iiraan ka gadaal markii Iiraan lagu soo eedeeyay in arrimo diiniyan oo shiicayna ay ka waday gudaha Soomaaliya taasoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u cuskatay waxyaabaha ay xiriirku ugu jartay dawladda Iiraan Cabdinaasir Maxamed Ali Hon Cable TV magaalada Muqdisho